waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan salaamayaa dawladdiisa waxaan salaamayaa hoggaanka xisbiga waxaan salaamayaa oon salaan aad u qaaliya u dirayaa haweenka kulmiye iyo dhalinyarada kulmiye waxaan aad u salaamayaa marti sharafta kale ee hadday xisbiga yihiin hadday baarlamaanka yihiin hadday yihiin marti sharaf aynu casino kale hadday joogto kulli salaan sharafeed baan siinaya qof walba halkiisaan ku salaamaya salaanta ka bacdi umaan soo kicin runtii khudbad dheer waayo madaxweynaha ayaa si fiican inoogu faahfaahiyey taariikhda xisbiga dad kalena waan hubaa inay ka hadlayaan anigu mahadnaq iyo in yaroo gowbaaba ah baan u kacay mahadnaqa aan u kacay horta madaxweynaheenii hore Axmed Silaanyana waan idinka sidaa hadday dawladda tahay hadday madaxweynaha tahay hadday qaranka Somaliland tahay iyo hadday khaasatan tahay dhalinyarada iyo dumarka kulmiye ayuu ikii soo faray dawladda wuu ducaynayaa madaxweynaha wuu ducaynayaa qarankana wuu ducaynayaa pointka kale halkan aan isu taagay waxa weeye in mahadnaq aan u jeediyo guud ahaan ummadda reer Somaliland oo dalkooda jecel oo dimuqraadiyadda jecel xoogaa yar yaroo duulduuli wuu dhacaa xagga mucaaradka wuu ku dhacaa laakiin waynu u dulqaadanaynaa xisbul xaakim baynu inagu nahay waxaan mahadnaq u jeedinayaa taageerayaasha kulmiye hadday debad joogaan hadday guda joogaan ee 20 sannadood mar walba hiil iyo hool la garab taagnaa kulmiye iyo dawladihiisa iska dambeeyay waxaan ku guubaabinayaa reer kulmiye inay qarannimada ay had iyo jeer u heelan yihiin halkaa ka wadaan inay wacyigelinta ay had iyo jeer wadaan hadday mucaarad ahaayeen iyo hadday xukuumad yihiinba ay halkii ka wadaan oo jecladay muujiyeen aynu dalkeenna u muujinay halkii ka sii wadaan waxaan ku guubaabinayaa ururadii waa la furay doorashooyinkaa soo socda taariikhda kulmiye ama siduu madaxweynuhu sheegay wan buu gelayay ama tuu buu gelaye inaynu wanka gallo ayaan ku guubaabinayaa waxaan ku guubaabinayaa inaynu doorashada niyad sami iyo isku duubnaan iyo inagoon ahayn baryahan waxaan maqmaqlayay kulmiyihii hore iyo kulmiyihii dambe wax kulmiye hore la yidhaahdo iyo wax mid dambe la yidhaahdaa ma jirto kulmiye waa mid weliba asaasayaashii kulmiye iyo qoladii soo yaro horreysay waxaan ku guubaabinayaa dadka cusub ee inoo yimaada soo dhoweeya maaha kulmiye dambe inagu xisbiyada mucaaradka ah ee jira had iyo jeer waynu foganaa dad bay nooga soo baxa iminkana way nooga soo baxayaan kuwaa soo dhoweeya mabaadi'deenna hadday inala qaateen waa kulmiye intaa ka bacdi madaxweyne waxaan kaa codsanayaa inaad ii ogolaato inaan shirkan weydiisto inay khaasatan haweenka reer kulmiye iyo dhalinyarada reer kulmiye sacab horta ugu tumaan magac raalliga ahaada sababta aan u leeyahay hamoodina inaan raggana aanan appreciate garayn ama aanay kulmiye ahayn waanu ka firfircoonnay ragga haddaanu dhalinyaro iyo dumar nahay hooyada iyo ilmaheedu kulmiye waa u daacad kuwa kiuga galaa waa iyaga kuwa had iyo jeer ordayaa waa iyaga aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya sheeko yar oo gaaban baan idinka sheekaynayaa doorashadii u dambeysay aynu madaxweynaheena Muuse Biixi ku soo saaraynay baa 12 habeenimo xaafadda 26 Juun sanduuq inoo yiilay ayay dhalinyaradii iyo dumar baa u badnaa waxa meesha jooga
bay shakiyeen telefoon bay ii soo direen waxay yidhaahdeen hooyo waanu shakisanayo gabadh wadaniina gudihii bay gashay sanduuqiina waa la xidhay markii la qaadayeyna gaadhiyadii commissionka maaha ka qaadaya samsam baan telefoon u diray samsamna way soo carartay waanu israacno waanu tagnay xaafadii oo dhan baa soo baxday oo halkii sanduuqu yiil isku xeertay maxaa dhacay baanu nidhi waxay yidhaahdeen nuhaa noo timi gaadhiga nuhada ah kuwii commissionka aan ahayn oo sanduuqa qaadayo bacdinabaa sanduuqan mucaaradka aan waxbaba ugu jirin waa layna dhacaya wasiirkii baa gudaa gashay horta gabadhii ay sheegayeen way ka soo saartay waxay tidhi sabab ay ugu jirtaa halkan ma jirto ciyaalkii iyo dumarkii ayaanu wacyigelin oo dhaqaaqno waxaanu nidhi commissionkii gaadhiyadii calaamadda lahaayoo dhan waxaa loo diray gobollada markaanu hooyinkan iyagaa kiraystay si aanu u qancino aniyo samsam baa gaadhigii ku soo ridanay 4 ka mida dhallinyaradeenii gaadhigii commissionkaanu dabagalay ilaa markii commissionkaanu galay ay wasiirkuna la gashay ee sanduuqii commissionkii la wareegay carruurtii may qancin markii bay yidhaahdeen alxamdu haddaanu seexanaynaa waxa weeye waa juuno dadku iskuma jiraano xamaasadoodu halkaasay ahayd aad iyo aad baa u mahadsantihiin waan idiin wada ducaynaynaa guul baynu rajaynaynaa kulmiyaynu nahay waa nabadgelyo